dalka dowladda hoose ee Hargeysa iyo cisbitaalka Dhallaanka ee magaalada Hargeysa. Kormeerkan oo ahaa mid aan la sii shaacin ayaa ujeedadiisu ay ku qotantay kuurgalka hanaanka shaqo ee hay'adaha dawliga ah, waxaana subaxnimadii hore uu madaxweynuhu ku waabariistay dowladda hoose ee Hargeysa oo ay ku sugnaayeen maayarka iyo ku-xigeenkiisa, iyagoo madaxweynaha uga warramay waxyaabihii uu hirgeliyay qorshayaashooda ku talagal ee ay waajihi doonaan. halkaasi uu madaxweynuhuna u sheegay sida loogu baahan yahay inay ka soo baxaan waajibka saaran ee ay ummaddu u igmatay, waxaanu u gudbiyey talo iyo tusaaleyn ku aadan hawshooda. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxaa kormeerkiisaasi ku wehelinayay wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada, xogayaha gaarka ee madaxweynaha, taliyaasha ciidamada booliska iyo madaxtooyada iyo xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac. waxaana kormeerkaasi mid lamid ah ay ku soo mareen wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland oo madaxweynuhu kula kulmay wasiir Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ku guda jira hawlihiisii shaqo iyo howlwadeenada kale ee wasaaradda. halkaasi oo madaxweynuhu ka tilmaamay waxa uu daaran yahay kormeerkiisa iyo waajibaadka looga fadhiyo wasaaradda warfaafinta. marka hawsha fiican haysan aad baan ku hambalyeynaya, taas si laba laabtaan xil weyn iyo ahmed weyn baa ka filayaa dadka inaynu gaarsiino wixii loo baahan yahay wara, inaynu gaarsiino wixii wuxuu sheega, inaynu hadi gorare waxyaabaha badan ee ummadda laga sheegayo, inaynu sidii aynu qadiyadeen u fidin lahayn inagu aynu uga dhaadhicin lahayn dunida iyo dadka iyo shacbigeennaba inta aynu xilka u saaran yahay. xil yar fudud maaha waxa la ilaahay la qabto. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa xusay qorshayaasha ku talagal ee wasaaraddu ay waajihi doonto iyo sida ay lama huraanka u tahay baahinta barnaamijyo ka hadlaya qadiyadda Somaliland oo laga sii daayay warbaahinta qaranka Somaliland. rabadaantina waa tan soo galaysa Somalilandna waxay u baahan tahay in xuduudeeda warbaahineed ay haysato ay uga faa'iideyso qaranka. marka waxaanu anaga iyo shaqaaluhu ku jirnay maalmahan shirarkaasi waxaanu ugu diyaar garoobaynay dagaalka aanu qarannimada Somaliland difaaciisa ku galayno iyo bisha Ramadaan ee Ilaahay nagu leeyahay diyaar garowgeeda iyo cibaadada oo iyadoo barnaamijyo fara badan oo diini ay ka baxaan idaacadda iyo TV-ga labadaba. aad iyo aad barnaamijyadaasi ay u yihiin qaar tiro badan. warbaahinta kale ayaa iyaguna maalmahan berigii hore madaxweyne ma iman jirin qolo BBC da wadiga imika ugu yimi. warbaahinta kale madaxa bannaan xidhiidh baan leenahay, xidhiidh ah saaxiibtinimo iyo wada shaqayn, iyaguna shaqadoodii u madax bannaan, annaguna aanu shaqadayadii haysano ayaa inta ka wasaarad ahaan maadaama xidhiidhka halka ay dowladda ka galaan ay halkan dariiqan tahay, xidhiidhkaasaan doonayna inuu noqdo xidhiidh aanay iscolaadsanin. madaxweynuhu waxa uu soo indheeyay qaybaha ay ka kooban tahay wasaaradda warfaafintu sida istuudiyaasha idaacadda Radio Hargeysa oo dib u habeyn lagu sameeyay iyo kaydka ugu daada weyn Soomaalida ee Radio Hargeysa. agaasimaha waaxda idaacadda Siciid Aadan ayaa ka warramay waxyaabihii ku soo kordhay idaacadda muddadii ay xilkaysay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, iyadoo geesta kalena uu madaxweynuhu kormeer ku soo maray istuudiyaasha telefishinka qaranka Somaliland, halkaasi oo uu faahfaahin ka siiyey maariyaha telefishinka qaranka Khadar Cali Gaas. soundproof kalena aan ku sameeyno dib aan u habeynay qaboojiyaal laba aan ku soo kordhinay siyadu mid un bay haayeen. waxa kale oo ku soo kordhinay mixers video mixers oo in awal kamarad kaliya lagu duubi jiray laakiin imika dhowr kamaradood baa lagu duubaa sawirku qurux badnaado. lighting waxbaanu ka bedelnay. waxa ugu muhiimsan ee sameynay waxa weeyaan tayeynta barnaamijyada. kormeerkan kadiska ee madaxweynuhu ku mariyay hay'adaha dawliga ah ee dalka ayaa ahaa mid aanay ku weelin wax ilaalo iyo tiknika ah, waxaana uu booqday isagoo wata gawaari gaar ah cisbitaalka casriga ah ee Dhallaanka ee magaalada Hargeysa. waxaan warbixin ka dhageystay dhakhaatiirta ku hawlan caafimaadinta carruurta. madaxweynuhu waxa uu uga sii gudbay madaarka caalamiga ah ee magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport.